السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ku soo gudbinaynaa channelkeenan lecture about competition waa khudbo ka hadlaysa tartan. In the name of Allah, magaca Ilaahay ayaan ka bilaabay. Allah ilaaha soo beneficent naxariista guud ka leh and the merciful oo hadda naxariista gaarka leh. Praise be to Allah. Mahadoo dhan Allah ay sugnaatay subhanahu wa ta'ala. Who has Allah so created us oo naga abuuray Ilaahay from wuxuu naga abuuray wax ka yimid ee kala xunjir of blood oo dhiig ah. And enabled me Ilaaha saud isi aniga to appear in an kasoo muuqdo on distant remarkable stage masraxan xusuusta ama masraxan xusuusta mudan leh ama ajiibka ah leh. It is cheerful farxad ay tahay, joyful oo farxad ay tahay, and delightful for me farxad ay tahay. sidoo kale saddexda cheerful waa farxad, joyful waa farxad, delightful waa farxad, cheerful ay tahay farxad, joyful farxad ay tahay, and delightful for me haddana waxay tahay farxad badan. To address inaan khudbadeeyo this aan ku khudbadeeyo halkan highly arranged si heersara loo soo habaabulay which kaasoo I'm going aan rabo to perform inaan ku guto my delicious remote view ra'yigayga fog ee dhadhan kale. My dear participants kasoo qaybgalayaasheeda qaaliga ah and audiences iyo daawashada qaaliga ah. Somalian proverb says maamaha Soomaali ayaa waxay oranaysaa some speech can't fill a vessel hadal badan weel ma buuxsho. Let me iyo ogolaada scatter inaan fardhiyo my words kalmadayga sida miraha oo kale inaan u fardhiyo iyo ogolaada. First warranty, what is competition? Waa maxay tartan? In fact, xaqiiqadii ee competition tartanka is and waa exchange of knowledge waa iswadaarsi aqooneed ama cilmiyeed among taasoo u dhexeeya docents ardayda. Our preceptors macallimiinteena holdi waxa ay qabtaan competition tartan and a lot of students arday badana way galaan waxay galaan for the competition tartanada. It is a questionable query in lisweydi waxa su'aal in lisweydi ayaa waxay tahay what is the purpose waa maxay ujeedada of holding loo qabanayo the competition tartanka ujeedada loo qabanayo maxuu yahay. There are waxaa jira two aims laba ujeedo ayaa jirta. The first aim ujeedada waxay tahay is to elevate in sar loo qaado students moral niyadda ama moralka ardayga in sar loo qaado. The second mid labaad waxay tahay is to increase in kor loo qaado students knowledge aqoonta ama cilmiga ardayga. Teachers macallimiinta ayaa mediate waxay dhexdhexaadiyaan every competition tartan walba oo ka dhacaya fasalka dhexdiisa ama banaanka ardayda aad ay u tixgeliyaan aad ay ardayda macallimiinta aad ay u dhexdhexaadiyaan. And two groups laba kooxo take part ayaa ka qayb qaadata in the competition tartanada. As a reality si xaqiiqadu tahay there are waxaa jira qualifications sharuudo or ama conditions sharuud ayaa jirta in the competition tartanka marka la galayo sharuud ay leeyahay. First warranty waxa laga rabaa you must not shout waa inaadan ku buuqin waa inaadan ku qeylin during competition tartanka intuu socdo muddadu socdo in la qeylay ma aha. Second mid labaadna you must not cheat waa inaadan qishka ma habboona asaga tartanka. Third mid saddexaad you have to keep waa inaad ilaalisaa the stability deganaanshaha xasilloonida tartanka waa inaad ilaalisaa. Fourthly mid afraad you must be satisfied waa inaad ku qanacdaa waa inaad ku raali ahaataa with the result maxsuul ka soo baxa of the competition tartanka whether haddii it succeed aad guulaysato or ama defeat ama lagu jibiyo. haddaad guulaysato iyo dala guulaystaba waxaa la rabaa tartanka in la ilaaliyo qiimihiisa inaad taxgeliso xasilloonida ilaali inaadan buuqin. halkaas aan ku soo koobaynaa. Thanks a lot.